السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعبد الرشيد علي شي محمود يا صومالي. عاو waxaan rabaa inaan ka hadlo hal qodob oo taariikh ah oo ah taariikhdii Maxamed Siyaad Barre uu dalka Soomaaliya kaga tagay iyo taariikhdii maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo uu dalka Soomaaliya uu xilkiina wareejiyey muqdishona degan yahay. labada taariikhood oo ay ku leeyihiin Soomaaliya iyo adduunyada ayaa rabaa inaan wax yar oo aad u yar inaan caawa ka taabto. warkeena waxaa saldhig ah aayaddan qur-aanka qaala tacaala walaa tabkhasu nnaasa ashyaahum walaa tacthuu fi lardi mufsidiin walaa tabkhasu nnaasa ashyaahum walaa tacthuu fi lardi mufsidiin baa ilaahay yiri. dadka waxooda ha ka nusqaaminina, dhulkana ha fasahaadinina. waa aayad qur-aan wey. waxaan dhegaystay dad badan oo Soomaali ah oo ka hadlaya qalabka warbaahinta iyo facebookyada iyo youtubeyada ka hadlaya. waxay ka hadlayaan xamar iyo muqdisho xaalado ka dhacay ayay waxay rabaan inay ka hadlaan. arrinta hadda ka taagan Somaliland iyo Hargeysa iyo Burco iyo Ceeri Gaaban inay ka hadlaan bay rabaan. kadib waxay fool xumeynayaan taariikhdii wanaagsanayd oo Maxamed Siyaad Barre 21 sano dalka Soomaaliya u xukuumay madaxweyne ka ahaa. taariikhdiisii intay fool xumeeyaan ayay taariikh fool xun oo qariban ayay soo qaadanayaan. markaasay waxay ku leebal garaynayaan oo ku shaabadeynayaan Maxamed Siyaad Barre. markaasay waxay ku mahmaahayaan wixii shalay ka dhacay Hargeysa iyo Burco iyo Sanaag Ceeri Gaabo ayay ugu mahmaahayaan. oo macnaha waxay sameynayaan isbardhig waxa Hargeysa ka dhacay iyo Burco iyo Sanaag ayay waxay leeyihiin waagii Maxamed Siyaad Barre waxaasoo fool xun buu sameeyey. qaar kale waxay rabaan inay ka hadlaan xamar. waxay leeyihiin maxamed cabdullaahi farmaajo kursigiibu isku dhejiyo waa ka degi waayey. Maxamed Siyaad Barre kursigiibu isku dhejiyo wuu ka degi waayey, deedna balaayaa ka dhacday. haddaba shacabka Soomaaliyeedu in badan oo Soomaali ah taariikhda been bay ka sheegaan. in badan oo Soomaali ah taariikhda run bay ka sheegaan. in badan oo Soomaali ah taariikhda run iyo been bay isku dhex qasaan. runta biyo kala dhibacaanka ah waa ciddii run garanaysa, waa ciddii cadaalad garanaysa, waa ciddii ilaahay garanaysa, waa ciddii aakhira garanaysa, waa ciddii sharaf garanaysa. Maxamed Siyaad Barre dalka Soomaaliya wuxuu ku leeyahay oo kaga tegay taariikh dahabi ah uusan ku lahayn madaxweyne Soomaaliya horey u soo maray ilaa caawa ilaa 60kii uusan ahayn ayuu Maxamed Siyaad Barre Soomaaliya ku leeyahay. waa marka wax lagu miisaamayay miisaan cadaalad ah oo taariikhda cadaalad ka sheegaya, miisaan run ah oo taariikhda run ku miisaamaya, miisaan ilaah ka biqida oo ilaah qof ka baqaya oo miisaanka u wax saarayo wey. marka laga hadlayo, marka hadalka carabka laga banaysanayo oo afka qoyan u laga hadlayo taagaarkeeda wey. 60kii calanka markii la qaatay 2022 Agost oo London UK ka hadlayo aniga Cabdirashiid Cali Sheekh Maxamed ma jiro madaxweyne Soomaaliyeed oo inta wanaag ah, inta taariikh ah, inta wax la taaban karo ah oo qiimo leh oo dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed Maxamed Siyaad Barre u qabtay ma jiro madaxweyne sameeyey. aadan cabdulla cismaan ka bilow xasan sheekh caawi joog ku soo gabagabe.
yaa la diriray maxamed siyaad barre maxay kula dirireen ma maxamed siyaad barraa gar lahaa mise kuwa la diriray ayaa ka gardarnaa waxa lagu diriray oo laysku qabsaday maxamed siyaad barraa ku gar lahaa mise kuwii la diriray baa ku gar lahaa maxamed siyaad barre waxaa la diriray reer galbeed waxaa kaloo la diriray kuwo kaloo soomaali ah reer galbeedku maxay rabaan oo kula dirireen 3 mas'alo oo gaagaaban tusaale u qaado wax badan bay kula dirireen oo isku maandhaafay laakiin 3 tusaale baan ku siin koo waxay yiraahdeen asaga hortiis iyo markuu joogay iyo hadeertaan caawan hadlayo oo xasan maxamed madaxweyne Soomaaliya ka yahay waxay reer galbeedku taagan yihiin inaan ciidan Soomaali la dhisi karin oo xoog leh oo tabar leh oo Itoobiya Kenya ka soo celiya dhulkii Soomaaliya oo Ingiriisiyay 1945 iyo koor iyo kadib halkaas qodob ma haysan qodobka labaad oo la isku qabsaday wuxuu ahaa khayraadka dalka ku jira gudihiisa Soomaaliya oo shidaalku ugu horeeyo inta badan annaga reer galbeed baa qaadayna shidaalkana waa soo saarayna inta yar dalka Soomaaliya ha qaato maxamed siyaad barre waa diiday eragii ka horeeyay oo ah ciidanka yaan la dhisin aadan cabdullahi xasan bay ku yiraahdeen cabdirashaad cali sarmaake ku yiraahdeen maxamed siyaad barre ku yiraahdeen saddexdaas odayba waa diideen taariikhduna waxay sheegaysaa cabdirashaad cali sarmaake wuxuu u dhintay eragaas ciidanka lama dhisi karo iyo waan dhisahaya oo dhisitaanka ku bilaabay ayuu u dhintay odayaal baan ka qoray Soomaali ah anigaan idinla hadlayaa ka qoray oo ii sheegeen aadan cabdullahi xasan waa diiday cabdirashaad cali sarmaake waa diiday maxamed siyaad barre waa diiday ciidankanaga waa dhisanaynaa intaan dhisan karna dhisanaynaa bay ku dhaheen reer galbeedo shidaalkiina maxamed siyaad barre wuxuu ku yiri November 1990kii shirkadda Conoco ninka xukumay oo Ameerikaanka ah wuxuu ku yiri 68 baan qaadaynaa shidaalkana waa soo saarayna maxamed siyaad barre 32 Soomaali ha qaadato maxamed siyaad barre wuxuu yiri kala wareej 68 annaga Soomaali dhulka iska leh iyo shidaalka annaga qaadayna 32 shirkadda Conoco oo madax u tahay qaado waa diidu yiri maxamed siyaad barre annaga waa diidu yiri wuxuu ku yiri 2 asbuuc kadib waad ka baxaysaa xamar waad ka baxaysaa jabhadihii baan soo gelinaynaa waad ka baxaysaa November bay ahayd November wuu dhameystay maxamed siyaad barre December wuu dhameystay January 16keedii ayuu xamar ka baxay waxaana ka saaray Robert Ogle safiirkii Mareykanka xilligaas iyo Mareykanka iyo reer galbeedka iyo ninkii shirkadda Conoco xukumay oo uu sheegayba inuu 2 asbuuc xamar ka baxay wixii afarta jabhado sameeyay oo USC soo geliyay xamar ninkaas uu ahaa Conoco xukumay shirkadda Robert Ogle buu ahaa safiirkii Mareykanka Mareykan bay ahaayeen iyo reer galbeed qodobka saddexaad oo reer galbeed iyo ku diriray maxamed siyaad barre wuxuu ahaa adinka 25 oo saraakiisha oo militariga oo askarta oo xukunka qabsaday xukunka shacabkii dib ugu celiya militariguna xoriyihiisa ku noqdo taana maxamed siyaad barre wuxuu kaga jawaabay shacabkanaga way duuban tahay amba waa dhageysan kartaan way duuban tahay wuxuu yiri shacabkanaga markay cadowgooda iyo nacabkooda kala gartaan ayna inay wax qabsan karaan cilmigooda iyo wacyigooda uu gaaro markaasaan ku wareejinaynaa dawlad shacaba annaguna xoriyahana ku noqonaynaa kadibna 72 inqilaab bay bilaabeen 78 inqilaab bay bilaabeen kadibna amxaaray u direen iyo Itoobiya halkaasay ka hogaamin jireen London tan BBC bay mataqaana ka gorayo xuquuqleyn jireen iyaga shidaalkii lacagtii amarka siin jiray reer galbeedku ilaa ma xamar 26kii January oo maxamed siyaad barre ka galay jabhadii reer galbeedkina ay xamar qabsadeen afartii jabhadoodna ay soo galeen Soomaaliya ciidamadiina nin walba gurigiisii aaday saddexdaa qodob oo reer galbeed iyo dhex maray maxamed siyaad barre ma reer galbeed baa ku saxan mise maxamed siyaad barre ku saxan
reer galbeed baa ku khaldan maxamed siyaad barraa ku saxan jawaabtoo koobanna waxaa weeye soomaaliya waxaa iska leh maxamed siyaad barre inuu ciidan u dhiso militari ah oo xoog badan waa shaqo asaga u taalla shidaalka soomaaliya shirkadda soo saaraysa inta badan in shacabka soomaaliya qaato waa shaqo maxamed siyaad barre iska leeyahay u taalla militarigu inay xukunka ku celiyaan shacabka oo xorriyahooda ku noqdaan waa shaqo maxamed siyaad barre u taalla shaqo reer galbeed u taalla maaha sidaasuu maxamed siyaad barre ku gar leeyahay saddexda jawaab oo uu siiyana waa ku gar lahaa wuuna ku saxnaa aniguna waa ku taageersanahay wixii soomaaliya oo diin iyo iimaan leh oo damiir leh oo caqli leh oo wax kala garanaya oo xataa habeenkii maalinta kale yaqaana waa ku raacsan yihiin inuu maxamed siyaad barre ka gar lahaa reer galbeedka kuna saxsanaa qolooyinka marka maxamed siyaad barre mar kasta oo waxyaalo xun ka dhacaan soomaaliya meel kasta ama jabuuti ha ka dhaceen ama kililka shanaad iyo jijiye soomaali galbeed ha ka dhaceen ama nfd garis ha ka dhaceen ama hargeysa ha ka dhaceen ama xamar ha ka dhaceen shanta soomaaliya mar kasta oo waxun ka dhacaan kuwa tusaale usoo qaadanaya kursiga maxamed siyaad barre isku dhejiyey wuxun baa laga dhaxlay maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre hadduu kursi isku dhejin lahayn soomaaliya jannay geli lahayd maxamed siyaad barre maadaama kursi isku dhejiyey baas iyo balaayo ayuu dalkii kaga tegey maxamed siyaad barre soomaaliya wuxuu kaga tegey taariikhi dahabi ah wuxuuna sameeyey taariikhi dahabi ah af soomaaliga aad qortaan oo wax lagu qoro oo idaacadaha xataa b b c iyo v o da gaaladu leeyihiin ingiriiska maraykan looga hadlo yaa qoray madaxweynihii qoray waa kee waa maxamed siyaad barre wey waxbarasho jaamacad ilaa iyo mataqaanaa gaaska koowaad oo lacag la-aana ninkii hirgeliyey maxamed siyaad barre soo maha sharciga iyo shaqada in loo siman yahay ninkii hirgeliyey soo maxamed siyaad barre maaha reer galbeedkii 16 juun ilaa iyo 20 agost shacabka Soomaaliyeed hadday saxnaayeen maxamed siyaad barre uu qaldanaa reer galbeedkii maxay dalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed maxay u qabteen haddii 69kii ilaa 26 January 1990 maxamed siyaad barre reer galbeedka ay la dirirahayeen oo dagaalkaas maxamed siyaad barre ku khaldana reer galbeed ku saxsanaayeen reer galbeed January 96 ilaa iyo 13 agost 2022 reer galbeed Soomaaliya maxay u qabteen maxamed siyaad barre 16 January qaran buu ahaa Soomaaliya madaxweyne maxamed siyaad barre ku magacaawna caalamkana waa laga aqoonsanaa dalkana wuxuu ahaa dalka Soomaaliya dalka adduunka oo Kenya ugu horeeyaan iyo Yemen iyo mataqaana iyo Ethiopia siday ahaayeen bay ahayd dalku ayuu ahaa dal dawlad ka jirto nidaam ka jiro shuruuc ka jirto kala dambe ka jirto caalamka kamid ah ayuu ahaa 27 January 1991 ilaa iyo caawa 13 Agost 2022 maxaa dawladnimo ah oo reer galbeedku Soomaaliya u sameeyeen haddii maxamed siyaad barre uu khaldana reer galbeedku ay saxsanaayeen inta maxamed siyaad barre reer galbeed kaga gudub maxamed siyaad barre iyo Soomaaliya la dirirtay maxaa lagu diriray yaa sa khaldana waxaa lagu diriray kursiga nasiih oo maxaa ku mutaystaan kursiga reer hebel baan nahay qabiil baan ku rabnaa anagoo reer hebel baa kursiga rabnaa ka kac yaa ku saxsanaa maxamed siyaad barre ku saxsanaa kursiga maxamed siyaad barre inay ka qaataan oo qaab qabiil kaga qaataan fikirka yaa iska lahaa yaa ku taakuleynayey yaa lacagta ku siinayey yaa telefoonada ku siinayey yaa information ku siinayey yaa ku dhiirigelinayey yaa hubkii rasaasta ku siinayey reer galbeedka
ilaa saddexdii hadda aan idiin soo sharaxay ayaa maxamed siyaad barre reer galbeed ku dirireen marka dad shaqaalo u ah reer galbeed dhinacna qabiil ku dhammaanaya oo anaga reer hebel baa kursiga rabna ee ka kac qaabkaasay afarta jabhadood ay ka midaysnaayeen qaabkaasay kursiga ku raadinayeen qaabkaasina reer galbeedka jawaasiis iyo dabadhilif ugu ahaayeen haddii arrintaas laabqarar aad ka qaaday oo ku murar dilaacday oo bathetic aad ka noqotay hadalkan ku hadlahayo maxay afartii jabhadood qabteen 27 January 1991 ilaa 13 Agost 2022 haddayna jawaasiis reer galbeed aysan ahayn haddayna kursiga qabiil heel baan naho qabiilka naga rabe ka kac aysan ahayn aaway mabdii siyaasadeed oo maxamed siyaad barre inay kaga fiicnaayeen ay wateen aaway maxay 32 sano 27 January 1991 13 Agost 2022 maxay wax ugu qaban waayeen afartii jabhadood haddaysan laba mas'alo oo khaldan aysan ku shaqaynin midda koowaad oo ah jawaasiis reer galbeed inay ahaayeen labo qabyaalad iyo qabiil anaga reer hebel baa kursiga radaysan wadan oo mabaadiyo wateen aw mabaadiyo ilaa waxa lagu yaqaanaa qofka mabda wata oo dadkii ka horreeyay ka mabda fiican wuxuu qabtaa dadkii ka horreeyay waxay qabteen wax ka fiican buu qabtaa markaas mabdiisi la mahadiyaa qofkiina la mahadiyaa aaway afartii jabhadood mabda ay wateen oo maxamed siyaad barre kaga fiicnaayeen oo la mahadiyay oo shacabka Soomaali uu mahadiyay aaway markay amxaara aadeen oo maxamed siyaad barre xamar kula direen jawaasiis bay ahaayeen markay soo noqdeen gudaha dalka soo noqdeen jawaasiis bay ahaayeen caawan aan hadlayna jawaasiis weeye afartii reer galbeedka ahaa oo Mareykan iyo Ingiriis iyo Faransiis iyo Talyaani ayay weli jawaasiis u yihiin ilaa 72 maalinka inqilaabka bilaabeen ilaa 78 inqilaabka ilaa ay amxaara aadeen 78 ilaa ay January soo galeen 26 xamar ilaa saacadan 32 sano kadib jawaasiis bay ahaayeen wax mabda ana malahayn oo aan ka ahayn reer hebel baan nal dhahayo kursigan reer hebel ku rabnaa hadhowna ayaga kursiga reer hebelkii ku diray afartii jabhadood oo ku heshiin waayay afartii jabhadood mid walba waxay rabtaa inay kursiga maxamed siyaad barre qaadato afartoodii baa ku diray guud ahaan haddana jabhad kasta SDF ayadaa ku dirirtay SNM ayadaa ku dirirtay USA ayadaa ku dirirtay SBM ayadaa ku dirirtay afartii jabhadood ayadaa mid ku dirireen maxamed siyaad barre intaa kaga tag maxaa Cabdullaahi Farmaajo u imow maxaa Cabdullaahi Farmaajo taariikhda Soomaaliya wuxuu ku leeyahay taariikh dahabi ah ayuu maxamed Cabdullaahi Farmaajo 5 sano 3 bil 15 bari uu Soomaaliya taariikhdaas uu ku leeyahay 2017 ilaa 2022 May 12 ayuu madaxweynaha dalka Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxamed Cabdullaahi maxamed Farmaajo wuxuu qabtay dhowr mas'alo oo ilaa January 26 1991 uusan madaxweyne kala qaban oo Soomaali ah maamulkii dawliga oo fowdada ahaa oo qabiilka ahaa oo musuqmaasuqa ahaa oo eexda ahaa oo kala sarreynta ahaa oo isdulmiga ahaa ayuu ka bedelay nidaam dawli ah oo xaafisku si dawladnimo u shaqaynayo oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha qaab dawlad iyo nidaam dawlad looga shaqaynayo oo Soomaali ay xafiiska arrimaha gudaha ka wada shaqaynayso oo xafiiska arrimaha dibadda Soomaali dhan ka wada shaqaynayaan oo shaqada loo simeeyay wasaaradda arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha ayuu maxamed Cabdullaahi Farmaajo 5 sano iyo 3 bilood iyo 15 bari sameeyay musuqmaasuqii la xadayay canshuurta shacabka laga qaado ayuu diiday in la xado oo canshuurta markii la soo qaado oo shacabka laga soo qaado ayagu uu shaqayn jiray inta kalena bangiga ayay ooli jirtay oo lagu kaydin jiray ilaa ma uu ka tagay 6 bilood oo soo socota mushaarkii ciidamada iyo shacabka hadduu nidaamkii dawliga oo kala dambeynta iyo xafiiska soo celiyay
musuq maasuqii la diriray qabkii soomaalida ay lahayd oo hoos fiirin jirtay oo shisheeyuhu ay xalne ka xukumeen madaxtooyada soomaaliya filla soomaaliya xalane far loogu yeeri jiray uu yiri ayagii ku yiri anaa dalka madaxweyne ka ah anigaana soomaali ah dalkaana soomaaliya dhaha xalanana muqdishoy ku taalla arrintaas kuwii ka madax adeegay dalka ma ka saaray kii UN-ka u fadhiyey oo caddaanka ahaa kii Uganda u fadhiyey ma ka saaray dalka qaar kale inta u cagajuguleeyey ma baqeen iyagoo dhan xalane tartiib ayagoo aamusan oo sanka taagayn oon filla soomaaliya madaxweyne fadhiya far ugu yeerayn oo xalane laga xukumin soomaaliya laakiin filla soomaaliya xalane usan xukumin laakiin filla soomaaliya farmaajo fadhiyo u xukumo xalane kuwa jooga sheeyaha farmaajo xulka ma wareejiye ma ka degi oo caashi maxamuud ma ku wareejiye mise kuma wareejin waa ku wareejiyey waa duuban tahay indhihiinaa ku arkayseen dhegihiinaa ku maqlayseen waxqabadkii farmaajo waxaa ka mid ahaa dadkii iyo hantidii soomaaliyeed oo dabadaha lagu dhibaateynayey ama dabadaha lagu haystay dadkiina maxaabiistii wuu ka soo daayo dhulkoodii buu keenay wixii hanti soomaali lahayd oo dabadaha ay haysteen shayuhuna xamar buu ku soo celiyey ninkaa waxaa la dhaha maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxaa soo haray maxamed cabdullaahi farmaajo kursi isku dhejiyey markuu kursi isku dhejiyey dhibaataa ka dhalatay horay baa adeerkiis maxamed saabara kursi isugu dhejiyey waxaa kursi isku dhejiyey ninkii shacabku cod iyo qof iyo cod baa rabnaa yidhaahdeen baarlamaankiina u feermeeyeen oo dheheen qof iyo cod doorasho hala geliya dalka kadibna yomamoto oo ah safiirkii maraykanka oo ah booskii robert ogli uu joogay 1991 January markuu maxamed saabar dal ka baxayay ninka isku wadanka ahaayeen oo isku siyaasadda ahaayeen oo labadaba Washington laga soo diray ayaa diiday doorashadii qof iyo cod asagoo isticmaalaya dad Soomaali ah oo USC ah oo hawiye ah oo xasan shiiq iyo shariif sheekh axmed iyo suudi yalaxow iyo cabdiraxmaan cabshukuur warsame xasan cali khayre intaasoo wada hawiya ay horkacayeen oo madax u ahaayeen oo TV-ga laga daawanayay oo duuban yahay warkoodii oo la wada arkahayay oo la wada maqlayay oo hadda la wada og yahay oo hadda kulli ay nool yihiin halkaa markay marayso ayay ciidan soo geliyeen ula baxeen badbaado qaran oo ah UAC oo ah hal nasab oo hawiya oo waliba abgaal iyo habargii mursada kaliya xataa awiye kale xataa inuu ku jirin baa dhici karta halkaa markay marayso ninka tanaasulay oo yiri doorashadii marka roob laha qabto prime minister oo cidiinaahu hawiyihiinaahu habargiirtiinaa ha idiin qabto doorashadii markuu xaasi ku soo baxana ku wareejiyey ma ninkaasaa kursi isku dhejiyey oo arrintaasu marka ma kursi isku dhejinba mise sida saxdaa waxayba ahaydba inuusan tanaasulin waxaan xabadaha ka daljir ka ridayana xabsi ku tuuro maxkamadna u diyaariyo dalkana qof iyo cod geliyo mar labaadna asaga farmaajo soo noqdo ilaan farmaajo qof Soomaaliya oo nool oo hadii cod iyo qof hal qof iyo hal cod la aado qof Soomaaliya farmaajo kula tartami karo qof iyo cod ma jiro inuu hadda kadib dhalan doono ma naqaan sidaas ay sida saxda haddana ayadoo saas tahay buu tanaasulay anigaan hadlayo cabdirashiid cali shiin maxamed arrintaa tanaasulka kuma raacsani kumana qanacsani cimriga inta kaartana kuma raacayo farmaajo waana dhaliilaha ugu waaweyn oo aan u hayo farmaajo weyn caawana idaacad lagama dhaheen farmaajo kursi ku dhajiyey iyo farmaajo waa dictator lama dhaheen hadduu talada hadda aan sheegahayo uu qaadan lahaa
oo haddaad shacabkii haysato baarlamaankii haysato maxaa yoomoto maraykana iyo dhowr xabo oo mataqaanaa yoomoto ku shaqaysanayo oo daba dhilfiya oo jawaasiis oo caada qaata maxaan ugu hakanahaya war uga yeelaya maan ciribta ku dhufto gebigoodaba maan sharciga hor istaajiyo xabsiga maan ku ururiyo sidaasay ahayd in la yeela sidaasaa sax ahayd oo abbaarta ahayd laakiin farmaajo wuxuu ka doortay waan tanaasulay ninkii noocaasa idaacadaha waxay ka leeyihiin farmaajaa kursi ku dhajiyo waxa weeye dhibaatuu dalkii geliyo balaayuu geliyey oo waxay ahayd in markii 4 sano u dhammaato uu iska tago horta yaa wata Soomaaliya maxaa Abdullaahi Farmaajo ku dhaleeyahay markuu 4 sano dhammaato iska tago oo dhil ka dhigayo horta 4 sano markuu madaxweynaha hada Soomaaliya inuu iska tago oo uu samar dambe ku soo noqon arinta yaa wata fikirkaas yaa iska leh maxaa laga jeedaa ma taqaana horta fikirka reer galbeedka iska leh waxaa laga jeedaa qarankii burburay 60kii January 1990 inuu dib u soo noqon oo aysan dawladnimadu aysan hana qaadin qaangaarin gaamurin xoogaysan weynaan oo marka madaxweynuhu 4 sano hawlihii la dhacaya in inta laga bedel mid cusub oo hadda bilow waxba aqoonin meesha inuu yimaado ilaa ninka hadduu 4 sano shaqeeyo nik oo 4 ku xigto ku darsado wax weyn buu qabanaya wadankii wuxuu gaarsiinayaa wax la taaban karo maxaa Abdullaahi Farmaajo ciidamadii buu dhisay 5 sano iyo 3 bilood iyo 15 baro ciidamadii dhisayay moral ahaan buu u dhisay tababar ahaan buu u dhisay aqoon ahaan buu u dhisay jir ahaan buu u dhisay wadani ahaan buu u dhisay qabyaalad la'aan iyo Soomaalinimo iyo Islaamnimo ayuu ku tarbiyay isxilqaan wax la yiraahdo la yimid oo qofka Soomaaliga inuu xooggiisa ku dhisto magaalada caasimadda ah laamigii burbursanaa oo Chinese markuu dhisay 7 ka dal dhisin ayuu jawhar asoo ku socda ayuu xil ka degay kii kalena xamar buu ka qaaday afgooyuu geeyay waxa qabadkiisii 5 sano hadduu 5 sano kala ku dar lahaa oo 10 sano xiriir dalka uu ka noqon lahaa maxaa Abdullaahi Farmaajo madaxweyne si kastoo reer galbeed ula diraan iyo shisheeye iyo kuwa jaajuusiinta sheeyo ku shaqaysto caada qaatiyaasha daba dhilfida Soomaalida intuu kulligood cagta mariyo ayuu dalka wuxuu gaarsiin lahaa meel aan cid ka soo cadow ah aysan dhulka jilbaha ugu dhufan karin ayna hor istaagi karin ayna burburin karin ayuu istaajin lahaa sidaa awgeed maxaa Abdullaahi Farmaajo Soomaaliya 5 sano 3 bil 15 bari waa sida ay sheegaan kuwa xisaabiye anu ma xisaabin waxaan ogahay 17 January 17 February 8 February 2017 15 May 2022 inuu inta madaxweynaha baan garanay laakiin saacada ahaan iyo anu daqiiqad ahaan uma garanayo mana xisaabin laakiin qoloyinba waxay sheegayeen 5 sano 3 bilood 15 intaaba iska qaado darajada intaas waa taariikh dahabi ah ayay waxay u tahay Maxamed Abdullaahi Maxamed Farmaajo waxaa la rabaa shacabka Soomaaliyeed qofka dad nicib tahay oo shakhsiyan u nicib tahay waxa uu yahay xataa hadduu gaal yahay xataa hadduu munaafiq yahay xataa hadduu muumin yahay waxa uu yahay inaad ku sheegto laakiin aad waxna ka dhimin waxna dusha ka saarin wixii si wanaagsanaa inaad ka dhimin xumaan u lahayna inaad ku kakabin sidaas waa sida aayada quraanka Ilaahay uu yiri wala tabkhasu nas ashyaa'ahum dadka waxooda ha ka dhiminina marka Ilaahay miisaan buu ka hadlayay reeshu cayb baa la hadlayay markay dadka xub beegayaan wax yar bay u beegayaan dariiqana waa istaagi jireen qofka waa dhici jiray tuugay ahaayeen labaas dhaqan xun bay lahaayeen oo foosha xun markaas Ilaahay wuxuu leeyahay war dadka waxay ka gataan markuu ku siiyo kiilo iyo cabir ku dhaho oo lacagtii kiilada ku siiyo muskiilaha siira kiiladiisi wasiib qofka adoo xataa gaal yahay nicib ama munaafiq yahay nicib ama muumin uu nicib ad nicib tahay baadana waxaa la rabaa inaadan cadaalad darro ku samayn inaadan dusha dulmi ka saarin
wuxuu leeyahay xaq u leeyahay inaad ka dhimin sidaa awgeed idinka maqalnay shacabka Soomaaliyeed farmaajo waa mareexaan waa idinka maqalnay adinka shacabka Soomaaliyeed baan ka maqalnay qaarkii kulligiin ma qaarkiin baan ka maqalnay maxamed siyaab barre kursi isku dhajiyay halaag baa ka dhacay farmaajo kursi isku dhajiyay halaag baa ka dhacay labada erayna waa idinka maqalnay maxamed siyaab barre allah u naxariisto jannat firdaws allah geeyo dambigiisa iyo dambiga waalidka allah dhaafo Soomaaliya intuu u qabtay iyo hadduu qalad galay intuu qalad galay waxaa boqol jibaaran waxaa kun jibaaran intuu wanaag u qabtay shacabka Soomaaliya dalka Soomaaliya qof insaan oo qaldamina ma jiro maxaa Cabdullaahi Maxamed Farmaajo intuu u qabtay Soomaaliya 5 sano iyo 6 bilood barnaamijka ahaa iyo intuu hadduu qalad galay uu jiro intuu wanaag qabtay ayaa boqolkiiba boqol badan intuu wanaag qabtay ayaa kunkiiba kun badan qof hadduu qalad galay farmaajana qof insaan oo qaldamin ma jiro sida awgeed shacabka Soomaaliyeed cadaaladda ha lagu soo dhawaado runtana ha lagu soo dhawaado akhlaaqdana ha lagu soo dhawaado anagu mareexaan haddaan nahay laba nin baa noo soo martay madaxweyne Soomaaliya ilaa 60kii ilaa 13 Agost 2022 nasabkanaga mareexaanka oo aniga Cabdishacaal Shiin Maxamed hadlaya aan ka dhashay labo nin ayaa madaxweyne naga soo maray oo Soomaaliya madaxweyne ka noqday midka koowaad waa Maxamed Siyaab Barre taariikh dahabiya ayuu Soomaaliya kaga tagay ninka labaad waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo hadda xamar ku sugan taariikh dahabiya ayuu kaga tagay arinta runta ah waa inaad aqbashaan shacabka Soomaaliyeed sidaan u sheegayo waa inaad u qirataan saan u cadeynayo waa inaad u cadeysaan sidaasu waa cadaalad waana run waana xaqiiq waana akhlaaq weyn intaas caawo noo joogaysa shacabka Soomaaliyeed wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh